wali waxaad daawanaysaan war wixii gudaha daafaca caalamka inaga soo gaaray markaana akhbaaraadka dibadda. dowladda Pakistan oo Imraan Khan ka mamnuucday khudbadaha tooska ah. dowladda Pakistan ayaa mamnuucday in si toos ah loo tabiyo khudbadaha ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imraan Khan. dowladda ayaa Imraan Khan u jeedisay eedo la xiriira in hadaladiisa ay abuuraan nacayb iyo kicin dadweyne oo ka dhan xukuumadda talada haysa. hase ahaatee tallaabadaas si weyn ayaa loo dhaleeceeyay waxaana laguna tilmaamay inay tahay siyaasad ku dhisan cadaadis. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay war wixii gudaha daafaca caalamka inaga soo gaaray oo ka daawanayseen Jubba TV aniga Ikraan Sharci magaalada la socodsiinay. intaan warkaani warxii ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.